Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada daawadayaasha ku xiran kanaalkeena Dansheeg. Waxaan idin leeyahay lahaantii Ramadaan Kariim. Maanta waxaanu ka hadlaynaa mowduuc ku saabsan dhacdooyinkii fitnadii weyneed oo kooban. Waqtigii Khaliifka Cusmaan bin Cafaan, dowladdii Islaamku waxay ahayd mid gaarsiisan dhulkii Faris ilaa waqooyiga Afrika. Iyadoo ay jirtay inay dowladdu ballaarinaysa ayaa haddana waxaa soo ifbaxaya dhibaatooyinka imanaya bulshooyinkii loo talinayay, ayna dhibaateynayeen barasaabadii gobollada u talinayay. Waxaa soo ifbaxay kuwo badan oo kasoo horjeeda siyaasadihii Khaliifka Cusmaan, iyagoo u sababeynaya dhawaanshaha reerkiisii reer Bani Umayya iyo siismadii uu siinayay lacagaha iyo basaska wanaagsanaa, isagoo u sameynaya qaraabo xiriirin marka loo eego aragtidooda. Waxaa soo baxay nin la yiraahdo Cabdullaahi bin Saba oo fitnadii kusii horiyay gobolladii waaweynaa sida Kuufa, Basra iyo Masar, wuxuuna helay garab ballaaran. Waxaa kulmay wufuud ka kala socda Masar iyo Ciraaq, waxayna soo aaday magaaladii Madiina si ay Khaliifka Cusmaan uga codsadaan inuu bedelo barasaabada iyo inuu siyaasaddiisii maaliyadeed. Wufuuddii waa iska noqdeen, Cusmaanna jawaabtii waa kala habsaamay. Haddana mar labaad bay kusoo noqdeen magaaladii Madiina, waxayna si kadis u hareereeyeen magaaladii iyagoo isku weer ka qabtay guriga Cusmaan. Dhacdooyinkii magaalada ayaa sii kordhay, fitnadiina waa ballaaratay. Duufaantiina waxay ku afkooday gurigii Khaliifkii Cusmaan. Ugu dambeynna waa la dilay. Khilaafadii waxaa la wareegay Cali bin Abi Taalib iyadoo xaaladdu adkayd. caasimadii khilaafada wuxuu ka raray magaaladii Madiina, isagoo u raray magaaladii Kuufa. Cadaadis kaga imanaya darteed iyadoo magaalada ay haysteen kuwii dilay Cusmaan. Cali wuxuu ku taliyay in baahi loo qabo dib u dhigista argoosiga kuwii dilay Cusmaan ilaa inta laga salfadhiisanayo arrimaha dowladda, fitnadana hoos loo dhigayo. Arrinkaas waxaa kasoo horjeeday barasaabkii Shaam, Mucaawiya bin Abi Sufyaan. Wuxuu khasab ka dhigay in loo argooyo Cusmaan, sidoo kale wuxuu siiyay dhiiggii Cusmaan maadaama isku reer ahaayeen. Waxaa soo baxay koox kale oo kasoo horjeeda siyaasaddii Cali, ayna hogaaminayeen Sayidda Caaisha oo ahayd xaaskii nabigeena suuban sallallahu calayhi wasallam, inay raacsanaayeen laba ka mid ah kuwii ugu waaweynaa saxaabada, waa Zubayr bin Cawaam iyo Talxa bin Cubaydullah. Kadib markii Mucaawiya diiday inuu la mubaayacoodo Cali bin Abi Taalib iyo inuu Shaam kusoo wareejiyo Cali, wuxuu ciidan u diray Mucaawiya si ay ugu qasbaan inuu la mubaayacoodo oo u hoggaansamo. Laakiin sanadkii 36 Hijriyada waxaa magaaladii Busra ka soo baxay kooxdii labaad ee hogaaminaysay Sayidda Caaisha si ay isugu dayaan inay go'aankooda ku kulmiyaan Ansaar. Fitnadii waa sii ballaaratay kadib dhacdada dagaalkii Al-Jamal, kaasoo u dhexeeyay garabkii Caaisha iyo khilaafadii Cali bin Abi Taalib. Kadib waxaa guuleystay Khaliifkii Cali, waxaana lagu dilay dagaalkaas labadii saxaabi ee Talxa iyo Zubayr. Calina wuxuu dib ugu celiyay magaaladii Madiina Sayidda Caaisha iyadoo nabad qabta. Cali wuxuu u diray fariin Mucaawiya bin Abi Sufyaan si uu go'aankiisa ugu caddeeyo ugana codsado inuu la mubaayacoodo kuna wareejiyo maamulkii Shaam, laakiin arrinkaas wuu diiday Mucaawiya wuxuuna ku adkaystay go'aankiisa. Cali iyo ciidankiisii waxay kusoo baxeen dhulkii Shaam, wuxuuna doonayay inuu xoog uga casilo Mucaawiya maamulkii Shaam. Sanadkii 37 Hijriyada waxaa dhacay dagaalkii Siffin, kaasoo u dhexeeyay labadii ciidan ee Mucaawiya iyo Cali. bilowga dagaalkii waxaa guusha u dhawaaday Cali bin Abi Taalib. Ciidankii Mucaawiya waxay kor u qaadeen warmaha afkooda Qur'aanka Kariimka ah, iyagoo Cali kaga dalbanaya inuu joojiyo dagaalka dhexdoodana xukumo. Cali bin Abi Taalib wuxuu garsoore u doortay Abi Muusa al-Ashcari, halka Mucaawiyana uu garsoore ka dhigtay gorgortame Cumar bin al-Caas. Labadii garsoore ayaa ku kulmay Duumatul Jandal, waxayna go'aansadeen inuu dhinac walba sii wato qorshihiisa gaarka ah. Mucaawiya wuxuu xukumayay Shaam iyo Masar, Calina wuxuu xukumayay Ciraaq iyo Jasiiradda Carbeed. waxaa kala qaybsamay ciidankii Cali, waxayna diideen natiijadii ka soo baxday kala qaybinta xukunka, waxayna inqilaabeen Cali bin Abi Taalib. Kooxdaasna waxaa loo yaqaan magaca Khawaarij. Khawaarijtii waxay go'aansadeen inay dilaan shakhsiyaadka ay u arkeen inay fitno wadaan, waxaana ka mid ahaa Cali bin Abi Taalib, Mucaawiya bin Abi Sufyaan iyo Cumar bin Caas. laakiin kuma aysan wada guuleysan inay dilaan ilaa dilkii Cali bin Abi Taalib mooye. kadib dilkii Cali bin Abi Taalib, wiilkiisii Xasan wuxuu noqday khilaafada cusub ee muslimiinta, laakiin khilaafadii wuxuu uga tanaasulay Mucaawiya bin Abi Sufyaan isagoo jeclaa inay fitnadu dhammaato, sidoo kalena dhowriyo dhiiggii muslimiinta. Sanadkii 41 Hijriyada waxaa lagu magacaabay sanadkii kulanka, waxaa loogu magacaabay muslimiintii ayaa yeeshay hal khaliif, waana Mucaawiya bin Abi Sufyaan. sidaas ayayna fitnadii weyneed kusoo dhammaatay. gebi ahaanba fadligaana waxaa iska lahaa Xasan bin Cali bin Abi Taalib. waad ku mahadsantahay daawashadaada. وإنه موضوع xiga. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم.